isagoo nuuraani ah oo laga heebaysanayo oo axadna uyan awoodin wejigiisa inuu fiiriyo bahjadiisa iyo dhalaalka iyo heybada ka baxaysa sheekheena sheekh cabdulqaadir aljilaani waxaa la siiyey akhlaaqdii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam akhlaaq almuxamadiya waxaa la siiyey xusni alyuusufiy quruxdii nebi yuusuf oo kale wasidqu asidiiqiy sidqigii sayid abubakar asidiiq baa wax laga siiyey waalcadlu alcumariy sayid cumar cadaaladiisii baa wax laga siiyey waalxilmu alcuhmaaniy dulqaadkii sayid cuhmaan baa wax laga siiyey waalcilmu waashajaaca waalquwa alxaydariya quwaddii iyo geesinimadii iyo cilmigii xaydar sayid cali bn abi aalib ayaa wax laga siiyey mashaa'ikhda sheikheena sheekh cabdulqaadir aljilaani ka marakacday culuwigiisa iyo sarayntiisa iyo sharafkiisa ka marakacay aad bay ma garanaysaayey ay u fara badan yihiin karaamaad sheikhu wuxuu lahaa fara badan wacdigiisii waan ka soo hadalnay madarasadii shiikha raximahu اllahu tacaala waan ka soo hadalnay karaamaadkiisii iyo waxyaalihii khawaariqda ahaa ee uu dadka ku muslimin jiray waxyaalihii khawaariqda ahaa ee uu dadka ku muslimin jiray waxaa ka mid ah sayidi sheekh cabdulqaadir aljilaani gawth alacdam maalin maalmaha ka mid a karaamadana waa ka soo wararnayoo waa taan nidhi waxay qumaysaa maqaam kalaam illaah ilaahay oo kula hadlaayo ku dhahaaya sadaqa cabdii fii kulli maa yuballiqu canii addoonkaygu wuxuu ku run sheegay wax alla wuxuu aniga xaggayga idinka soo gaarsiiyey waa nebiga markay mucjizo u tahay weliga markay karaamo u tahayna waxay la mid tahay isagoo odhanaya sadaqa cabdii fii mutaabacati rasuuli addoonkaygu wuxuu ku run sheegay rasuulka raaciddiisii ayuu ku run sheegay rasuulkiisa raaciddiisa ayuu ku run sheegay gawthulacdam isagoo meel maraaya ayuu wuxuu arkay musliman wa nasraaniyan yatajaadalaani ruux muslima iyo ruux nasraaniya oo doodayaan ayuu arkay fasa'ala can mujaadalatihimaa war maxaad isku haysataan ayuu weydiiyey faqaala almuslimu ninkii muslimkahabaa wuxuu yidhi yaquulu haada alciisawiy midkan ciisaawigaa wuxuu leeyahay ina nabiyanaa afdal min nabiyikum nebigeennaa nebigiina ka fadli badan wa ana aquulu waxaan leeyahay bal nabiyunaa afdal bal iska baddaaya nebigeennaa fadli badan baan leeyahay gawthulacdam baa nasraanigii wuxuu ku yidhi ninkii ciisaawiga ahaa biayi daliilin tuhbit fadiilata nabiyikum ciisaa calaa nabiyina muxamed sala allahu calayhi wasalam nebigiina nebi ciisa sala allahu calayhi wasalama inuu ka fadli badan yahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama maxaad ku sugaysaa oo daliilah ayuu sheekh cabdulqaadir ku yidhi ciisaawigii wuxuu yidhi ina nabiyanaa kaana yuxyi lmowtaa sida qur-aankeennuba sheegay nebigeenna ciisaa wuxuu noolayn jiray buu yidhi kuwa dhintay sheekh cabdulqaadir aljilaani baa markaa wuxuu yidhi inii lastu binabiyin bal min atbaaci muxamedin sala allahu calayhi wasalama aniga nebi ma ahi bal waxaan ahay kuwa raacsan nebi moxamed in axyaytu mayitan atu'minu binabiyina muxamedin sala allahu calayhi wasalam haddaan ruux dhintay nooleeyo anigu oo karaamadayda ku nooleeyo ma rumaysanaysaa fadliga nebi moxamed oo diinta islaamka ma soo gelaysaa faqaala wuxuu yidhi nacam faqaala wuxuu yidhi arinii itus qabran qabri daarisan duqoobay ramiiman baaba'ay litaraa si aad u aragto fadla nabiyina moxamedin sala allahu calayhi waalihi wasalam fa araahu wuxuu tusiyey qabran catiiqan qabri duqa ayuu tusiyey faqaala shiikhu wuxuu ku yidhi lilciisawiyi ninkii ciisaawigaa shiikhu wuxuu ku yidhi ina nabiyakum biayi kalaamin kaana yukhaatibu lmayita xiina ixyaa'ihi nebigiinu markuu meydka noolaynayo muxuu dhihi jiray qaala fii jawaabihi kaana yukhaadibuhu biqowlihi qum biidni illaah qum biidni illaahi buu odhan jiray gawthulacdam marka wuxuu yidhi ina saaxiba haada alqabri qabrigaa ninka ku jira kaana muganiyan fi dunyaa adduunku ku dhex gebyi jiray nin gabayaa ah ayuu ahaa intuu adduunka joogay in aradta an uxyiihi muganiyan fa ana mujiibun laka haddaad doonayso in aan kuu soo nooleeyo asagoo gabyahaya waan samaynhayaa buu yidhi haye buu yidhi asagoo gabyahaya soo noolee
faاnshaqa الqabru waqaama الmayitu xaya muganiya qabrigii baa kala dilaacay ninkii meydka ahaana isagoo hooyaalay ay leh ayuu qabrigii ka soo baxay falamaa ra'a النasraaniyu hadihi الkaraama nasraanigii markuu karaamadan arkay iyo wa fadl nabiyina mحamedi salى الlahu عalayhi wasalam nebi moxamed fadligiisa markuu arkay ayuu aslama calىa yadi اlgawthi sheekh cabdulqaadir aljilaani gacantiisa ayuu ku islaamay waa gartay sidaasoo kale waxaa ka mid ahaa sheikheena sheekh cabdulqaadir aljilaani noolayntii ilaahay uu u nooleeyey dadka dhintay isagoo shiika weliga ilaahaya ku karaamaynaya nin ka mid ahaa khaadimiintii sheekh cabdulqaadir aljilaani ayaa dhintay wa jaaءat zawjatuhu ilى اlgawthi sheekh cabdulqaadir aljilaani bay zawjadii u timid fatadaرacad waltaja'at ilayhi way tadarucday waxayna magan gashay shiikii wa طalabat xayaata zawjiha ninkeeda noloshiisayna ka dalabtay ninkii waa dhintay ninkeeda noloshiisay ka dalabtay fatawajaha algawthu ilى اlmuraaqaba gawth muraaqaba iyo alla bari ayuu galay fa ra'aa wuxuu arkay fii caalami اlbaaطin caalamka caalamulbaaطinka ah ama caalamulgeybka ayuu wuxuu ku arkay ana malaka almowt calayhi الsalaam yuscidu ilى الsamaa wa macahu اlarwaax almaqbuuda fii dalika اlyowm malakumoodoo samada sii fuulaya oo arwaaxdii maalintaa la qibdoodayna sii wata ayuu arkay faqaala wuxuu yidhi yaa malaka almowt malakumoodow wuu la hadlayaa qif wacdinii ruuxa khaadimii fulaan istaagoo waxaad isiisaa hebel khaadimkayga ahaa ruuxdiisa isii faqaala malakulmowt wuxuu yidhi inii aqbidu اlarwaax biamrin ilaahiyin war aniga amar ilaahiya ayaan arwaaxda niyaho ku soo qibloodaa wa u'addiiha ilaa baabi cadamatihi albaabka cadamadiisa ayaanan u gutaabi kayfa yumkinunii an ucdiyaka ruuxa aladii qabaltuhu biamri rabbi seen kuu siinayaa amarka rabbigay ruuxan ku soo qiblooday sheekh cabdulqaadir waa uu ku celceliyey oo wuxuu yidhi warniyahow ruuxda khaadimkayga isii faاmtanaca min icdaa'ihi malakumood waa diiday inuu bixiyo wa fii yadihi darafun macnawiyun daraf macnawiya ama dembiil macnawiyuhu wataa oo sida dembiishoo kale ah shay dembiishoo kale ayuu wataa fiihi alarwaax almaqbuuda fii dalika alyowm waxaana ku dhex sugan arwaaxdii maalintaa la qibdooday fabiquwati اlmaxbuubiya jacaylkii ilaahay iyo asaga ka dhexeeyey sheekh cabdulqaadir jilaani quwadiisii ayuu jara zambiila dembiishii ayuu soo dhuftay wa akhada min yadihi malakumood gacantiisii buu ka soo qaaday fatafaraqat اlarwaaxu arwaaxdii waa daadatay wa rajacad ilaa abdaaniha jirarkay ka soo baxday bayna ku laabatay ma la yaabaysaa marka meesha laba addoonaa ku dagaashay ogow waa laba addoon malaguna waa addoon sheekh cabdulqaadirna waa addoon laba addoon baa meesha ku dagaashay marka laakiin adigu markaad malagga maqasho laba addoon baa meesha ku dagaashay malakumoodna waad ka warhaysaa hadda ka hor nebi ambiyada ilaahay ka mida intuu u yimid in isha lagu dhuftay oo intaanoo dhan la fujiyey oo isagoo ilaa uu ilaahay ku laabtay tafaasiirtay ku qoran tahay marka laba addoon oo malag iyo insi ah baa meesha ku dagaalay malakumood marka rabbigiisuu la hadlay wuxuuna ku yidhi yaa rabbi anta aclam bimaa jaraa baynii wa bayna maxbuubika wa weliyika cabdulqaadir ilaahayow waad ka warhaysaa aniga iyo maxbuubkaagii weligaagii cabdulqaadir wixiina dhex maray ilaahayow waad ka warhaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala marka waa uu la hadlay malakumowdo wuxuu ku yidhi yaa malakulmowt maxbuubkaygu wuxuu ku weydiistay maxaa u siin weyday hal ruuxoo keliya oo aada soo qaaday ayuu ku weydiistay maxaad u siin weyday sidii baana waxaa ku noolaaday muriidkii sheekh cabdulqaadir aljilaani intii kalena markaasuu ma garanaysaa malakumowd ka soo qaatay haddii ilahay idinkeed le arwaxdiisi ka soo qaato waxaa ka mid ah karaamada shiikha ay ka qoraayaan culammadii la zamantantay ay ka qorayaan waxaa ka mid ah fii jaclihi اlunhaa dakaran nin xertiisa ka mid ah oo yidhi wiil ilaahay iiga bari oo gabar u dhalatay inuu ilaahay u baryey gabadhii in wiil loo bedelo oo ay wiil u bedelantay wuxuu odhanayaa samictu can shaykhi sheekh daawuud اlqaadiriy annahu qaala jaaءa rajulu ilى اlgawth اlacdam sheekh cabdulqaadir jilaani baa nin u yimid
وqاaل wuxuuna ku yihi hذا الbاb العاalي qبلة الxاaجaaت وملجأ النajاaت albaabkan sareeya waa qibladii xaajaadka loola soo qasdaayey waa ملجأ النajاaت badbaadada meeshii lagu magan gelaayey waaye faأna alتaجي ilayhi waan magan galayaa وأطلب waلada ذakرا wiil baana rabaa cunug wiila ayaan rabaa faqاala lahu الغawث غawثkii baa wuxuu ku yidhi طلبtu min الlahi an yuعdiyaka maa turiidu fayuعطiika ilaahay waxaan ka dalbay waxaad doonayso inuu ku siiyo waana uu ku siinahayaa falaazama dalika الrajulu xuduurahu kula yowmi fii majlisihi ninkaas wuxuu raatib ka dhigtay maalin walba inuu u yimaado sheekh cabdulqaadir jilaani majliskiisa inuu yimaado fabixukmi اlqaadiri اlmudlaqi wulidad lahu bintun ilaahay qadartiisa gabar ayaa loo dhalay ninkii asaga ahaa فأkhadaha الrajulu وأddaaha ilى اlgawثi wuu soo qaadayoo sayid sheekh cabdulqaadir aljilaani ayuu u keenay wa qaala wuxuu yidhi kalaamunaa calىa waladin dakarin wahaadihi benton waxay u ahaa sheekadii aanu ku ballannay wiil bay ahayd tanuna waa gabar faqaala lahu اlgawثu sheekh cabdulqaadir aljilaani wuxuu ku yidhi lafihaa waaddihaa ilى اlbeyti duuduuboo orodoo guriga gee wa taraa maa yadharu min waraa'i astaari اlgaybi xagga qaybka daahiyaasha qaybka gadaashooda waxyaalaha ka xasila waad arki doontaaye falafahaa wa akhadahaa wa addaaha ila اlbeyti waa duuduubay oo guriga ayuu geeyey faidan hiya waladun dakarun biqudrati اllaahi tacaala mase waxayba noqotay weli dakara ayay noqotay biidni اllaahi tacaala allahuma shur nafaxaat ridwaani calayh ومدنا بالأسرار التي أودعتها لديه نفعنا الله بكل ذكروا waxay sheegeen أن الغوث الأعظم لما ركعتها الصلاة والسلام daar السلاam uu usoo laabtay wa kaana axadu الsaariqiina baa wuxuu ahaa waaqifan fi طariiqi waddada mid taagan oo muntadiran majii'a axadin min almaariina kuwa dadka soo maraya ayuu meesha ku sugahayey liyaslubahu waya'khuda amwaalahum si uu u bililqaysto oo xoolaha uga dhaco fawasala algawثu ila الsaariqi gawdkii baa soo gaaray tuuggii faqaala lahu اlgawثu man anta gawdkii baa wuxuu ku yidhi war maxaad ahayd faqaala wuxuu yidhi ana min ahli اlbaadiya ahlu baadiye ayaan ka mid ahay fakushifa lahu gawثu fakushifa lahu waxaa loo feyday ana ismahu maktuubun bisawaadi اlmacsiya wa khadara bibaali الsaariqi tuuga qalbigiisana waxaa ku soo dhacay ana hada الrajul bihadihi اlheyba wاlcadama laysa bicajabin an yakuuna algawث alacdam gawثulacdamkii uu maqli jiray ermuu yahay ayuu tuuggiina qalbiga iska yidhi sheikhiina waxaa loo feyday maa khadara biqalbi الsaariqi tuugga qalbigiisa waxaa ku soo dhacay faqaala sheekh cabdulqaadir wuxuu yidhi bal ana cabdulqaadir jilaani baan ahay buu ku yidhi waa isla anigii fawaqaca saariqu fi lxaali tuuggii isla markiiba wuxuu ku dhacay calaa qadamihi اlmubaaraka shiikha gomadiisii barakaysnayd bilaa muxaalin wa jaraa calaa lisaanihi carabkiisana waxaa ku soo dareersaday yaa sayida cabdulqaadir shay-an lilaah sheekh cabdulqaadirow shay ilaahay leeyahay baa tahay sheekh cabdulqaadir xaalkiisa ayuu ma garanaysaayey ayuu u beer jilcay wuxuuna ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu tadarucay oo ugu tawajuhay inuu qalbigiisa ilaahay ninkan wanaajiyo khidaab baa uga yimid ilaahay xaggiisa ayaa khidaab uga yimid oo waxaa lagu yidhi yaa gawثu acdam dalli saariqa calىa طariiqi الsawaab saariqa waxaad tusisaa ood ku hanuunisaa waddadii toosnaanta wa arshidhu ilaa hidaayati اlaxbaabi axbaabta hanuunkoodana ku hanuuni wajcalhu qudban min alaqطaabi waxaadna ka dhigtaa qudbi aqdaabta ka mida ka dhig fasaara saariqu tuuggii wuxuu noqday qudban min alaqdaabi qudban buu noqday binadrihi bilartiyaabin fiirintii uu fiiriyey sheekh cabdulqaadir jilaani fiiradaas ayuuba qudbi ku noqday ninkii tuugga ahaa ee waddada goynta ugu galay allahuma shur nafaxaat ridwaani calayh wamidana bilasraari lati